السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين ملكستو أشوكتان كسو دوادا كورسو عصب وأن كبرنينو برنامج كعانكا اللي هم قعابو أدوبي أفتر إفكتي CC 2020 أما لباتن waxaynu ku balansaneen inaan bilowno course aynu ku baran doono barnaamijka caanka ee dunida ugu caalamisan ee lagu magacaabo After Effects. Sida darteed waxaan bilaabaynaa caawa course-kiisii casharkii ama darsigii ugu horeeyay ayaan baran doonaa. Sidoo kale waxaynu casharkeena ku bilaabaynaa interface-ka ugu horeeya oo lagu bilaabo After Effects. After Effects marka rabtid inaad meesha tan ka furato shaashad aad ku shaqayso waxa halkan ku yaala laba system. Labada system waxa weeye new composition from footage. Haddii ku diyaarsanayeen file oo hore aad u diyaarsay halkan waa ka soo dooranaysaa. Haddii laakiin hadda qof document sameynaya tahay sidaan horey u soo aragnay Adobe Premiere Pro waxaa lagu galaa shaashadiisa sequences wax la yiraahdo kana waxaa lagu galaa composition wax la yiraahdo. Sida darteed new composition ayaad leedahay. Halkan ayaad ka dooranaysaa resolution-ka iyo time-ka aad rabtid inaad ka dhigto project-gaaga, macnaha saacadda aad ka dhigayso. Hadda ka dhigayso 30 daqiiqo, hal daqiiqo, hadda nus daqiiqad, adigu waxa ka dhigaysid ayaad halkan ka dooranaysaa. Okay, aan u noqdo Premiere Pro na waa kan marka faylka ugu horeeya new tiraado oo halkan aad magac ku qorto. Markaad halkan magac ku qorto resolution-ka isaga waa diyaarsan yahay sababtoo wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo H264 ayuu leeyahay. Marka isaga saan ugu dirto wuxuu ku geenayaa meesha aad sequences ka dooran lahayd. Meesha halka kani markaad halkan new composition tiraado oo halkan aad saxsaxato resolution-ka ayaad okay leedahay. Asaga si automatic marka wuxuu ku furayaa shaashadii aad soo dooratay. Halkan inaga shaashada aan soo dooranay ayaa wax ka qaldan yihiin. Marka waa inaan project cusub aan furano kii horena aan ka noqono new de. Meesha naga qaldan waxa weeye halkan ayaa wax naga tahay 100. Sida darteed waxaan ka dhigaynaa 1080 ayaan ka soo dhigan doonaa. Adiga marka hore ugu horeysa soo kicisid uu ku saxan yahay oo 1080 ay ku tahay laakiin aniga project aan ku diyaariyay sidaas ayaa khalad ku yimi. Okay, sidan ayuu noqday. Waxaan noo furmay gudihiisa iyo meesha project-yada ku diyaarsan lahayn. Waxaan noqonaynaa Premiere Pro waa kan. Premiere Pro halkan ayaad furaysaa. Waxaad leedahay sequences ka aragtid inaad dooratid halkan ayaa ka dooranaysaa. Meeshan 1080p oo 30 frame per second ayaa dooranaysaa. Halkan ayaa magaca markaas ku qoranaysaa. magacaad u baahan tahay ayaad ku qoranaysaa markaa. Okay, asagana sidaas ayay shaashadiisa kugu furmaysaa oo project-ga aad ku shaqeysay shaashada aad ku shaqeyn lahayd ay kugu furmaysaa. Marka After Effects ayay ahayd muhiimadeenu. After Effects waxa loo sameeyaa wax la yiraahdo composition. Composition-ka hadda aan soo sameysanay ayaa waxaan u sameynaynaa wax la yiraahdo solid. Macnaha intaan tool ayuu halkan waa timeline-kii halkan waa meeshii oo project-yada ku diyaarsan lahayd. Halkan waa effect control-kii, halkan waa shaashadii, halkan waa meesha farta iyo waxaas ka sixlaad iyo effect-yada iyo waxaas ka keeni lahayd. Xaggan sarena waa meeshii toolska aad ka heli lahayd oo magaranaysaa edit, composition, layer, effect, animation, view, window, meelaha ka soo kala dooran lahayd weeyaan. Marka After Effects markaan rabnaa halkan background u sameeyno waxaan taabanaynaa halkan ayaan click siinaynaa kadibna waxaan dhahaynaa new kadibna waxaan doonaynaa solid
solid ayaan dooranaa. Solidka halkan aan dooranay ayaan waxaan dooranaa midabka ayaan bedelanaa. Waxaan ka dhiganaa gray oo kale, gray xoogaa kaas camal aan ka dhiganaynaa. Aniga midabka garayga waxoogaa jecelahay. Okay ayaan leedahay. Waxaa lagu sameeyey shape la-eg shaashadaadii oo afarta dhinac fiiriya. xagga dhibica taal, xagga dhibica taal, xagga dhibica taal, kor iyo hoos dhibica taal, geesahana dhibica taal. halkan waxaa ku artaa dhibicdan waa anchor point. waa baradona anchor point sida loo maamulo. marka waxaan rabnaa maadaama aan ka dooranay waxaan kusii deynaynaa effectigaas ayaan ku bedeli doonaa nidaamkiis oo iftiinkan kalarkan isku wada eg. waxaan rabnaa inaan grande aan ka dhigno kala duwana. marka halkan waxaan ku qoraynaa rambi ayaan ku qoraynaa. halkan ayuu rambi yaalaa, halkan ayuu yaalaa grande and rambi. waa kan grande and rambi baa qaadaysaa oo ku sii deynaysaa. grande and rambi waxaad awood u leedahay marka inaad bedesho kalaradan oo kalarka hadda kore oo garayga inta halkan buluug ka doorato waxaad ka dhigaysaa buluug oo saan camal ah. buluug adigu saan adiga sida adiga isla waa ku qanacsan tahay ayaa dooranaysaa. kaas oo kale kore oo kale. midabka hoose cadaankana waxaa ka dhiganaysaa buluug oo madow xigeen oo kale ka dhigo. marka hadda shaashada TV-ga kale ay diyaarinaysa. marka halkan fiiri laba dhibcood baa la soo dhigay oo labadii halkan noo taal laba dhibcood oo kale ayaa daba yaala. marka maadaama aan rabno inaan grande aan dhaqaajino oo systemkiisa isaga wax ka bedelo oo midabadiisa qurxino, waxaan dhaqaajinaynaa dhibcahan ayaan dhaqaajinaynaa. fiir markan xagga u dhaqaajiyo wuxuu noqonayaa iftiin oo saan oo qurux badan. oo haddaan saan ka dhigo wuxuu noqonayaa wax oo cawl qurux badan ah ayuu noqonayaa. marka aniga waxaan rabaa inaan sameeyo oo sidii TV-yadoo kale ayaan rabaa inaan sameeyo. marka sidan ayaa isaga horta barajkiisa loo diyaarsadaa. adigana garandigan kuma xirna inaa buluugan isticmaalayo, kuma xirna inaa xataa garandigan isticmaasho. adiga waxaa rabtaa shape nooca rabtaa samaysan oo isaga dhexdiisa faylka kamsage kale lasii dhexgelin karaa. faylal baa la dhex keeni karaa, waxma isdiidayo. xataa barnaamijyo lagu soo curiyey Premiere Pro gudihiisa lagu soo curiyey ayaa dib loogu soo raraa After Effects. way isgalaan dhammaan barnaamijyada Adobe dhammaantood way isgalaan. xataa Photoshop barnaamijyada aad ku curiso After Effects waa keeni kara. logooyin kale marka rabta inaad animation u samayso ay dhaqaaqaan oo xasaa u kala boodaan waa halkan ayaad keeni kartaa. marka soo diyaarsata barnaamijkaagii tos ayaad u keenaysaa. ma aha marka wax isdiidaya, dhammaantooda wax wada shaqeeya. marka casharkan intaas kooban yahay. insha Allah tacaala casharka haddii aa fahantay ama fahmi weysay qaybta hoose faahfaahinta kaga soo hadal iyo sidoo kale WhatsApp-ka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.